maalinba maalinta ka dambaysa waxaa si laba jibaarmaya xaaladda abaareed ee ka jirta degmada Garadaga iyo deegaanada hoos yimaada deegaanada kala sharka Sincaro Faraguul oo kamid ah meelaha ay sida baan u saameysay abaartu ayaa telefishinka bulsho oo ay safarka kormeerka iyo xog ka helida xaaladda abaareed ku weheliyaan gudida abaaraha ee heer degmo ee degmada Garadaga cagta ku soo dhigeen deegaano badan oo duruufta biyalaaneed dadka ku dhaqan si muruga leh uga muuqato boodhka iyo habaaska sida ufada u kacaya madowga dhulka ee u ekaaday deegaan carro bedel ku dhacay intuba waxay muujinayaan badida iyo xoogga abaarta deegaanadani ka jirta la eg tahay bulshada kala duwan ee deegaanada aanu mar inay kula kulanay ayaa dhammaantood si isku mid ah uga hadlay xaaladda adag ee ay haatan wajahayaan qoylodhaana u diray xukuumadda Somaliland iyo gudida abaaraha ee heer qaran jilaalada waa la iskala warhayaa maamulku waxaan maleeyaa dadkan uu ka dhashay iyo xukuumaddu dadkan bay ka dhasheen way ka warhayaan baan u maleynayaa abaartu intay ka jirto maanta la isu sharaxi maayo nin fadhigaaga arkaba la yiri looma jiro joogsado maanta nin loo sharaxay ma jiraan u maleynayaa ama magaca Soomaaliyeed ku dhashay ama magaca hadii reer Somaliland loo sharaxi maayo taasaan u leenahay wax la qabo la garanaya xagga markaan u soo noqono xagga jilaalkii horta cawskii dhulka loogu yimi wuu yaraaday boqolkiiba boqol wuu yaraaday xoolihii aanu meesha keenay geelba majoritiha geel odeed buu ahaa oo ood buu joogi jiray geeli waa jilacay wuu halgeliyay kan ilaa buu holle inta u dhaxaysa ilaa saxdheer waa ka yimaadeen ilaa adbataag ilaa qorilay maantana waxa weeyaan waa jilicsan yihiin aad iyo aad bay u jilicsan yihiin ilaahay waxaanu ka baryaynaa raxmaad khayr qabo oo dalka dhameeyo oo kulligeen meeshii allaale meeshii Soomaaliya joogta gaadhaan ilaahay ka baryayna ilaahay saasaanu ka baryaynaa mid degdeg oo caayiman baanu ilaahay ka baryaynaa mid dunida oo dhan maraanu ka baryaynaa annanku maamulka waxaanu ka codsanaynaa haddiidan kale ka dhawo taageero waxtar aanu ka baryaynaa waxaanu ka codsanaynaa madaxweynaha iyo gudida abaaraha ee heer qaran waxaanu ka codsanaynaa inay maxay tale ay baahidayada hoos u eegaan waxana haya haraad waxana haya baahi maxay tale raashinkii horena waxa la siiyay dad naga sii jilicsan oo reer miyi soo guurtaa iyo maxay tale dad soo hayaamay annagana fayska dambeena laga qayb galiyo madaxweynuhu nadaneeyo iyo gudida abaaraha heer qaran waxaanu leenahay hadaanu nahay goobta barakacayaasha kala sharka in badan ayaanu naalay inta badan aanu naalay maalinba maalinta ka dambaysa ay baahidu noogu sii daray maanta maalin nagaga daran tahay ma jirto malaynaya intaanu naalay waayo maanta biilaan horta raad bablan barkoon oo ah marxigtada manfacaadka aan biyaha ku karin lahayna ma hayno waxaanu dawladda iyo xukuumadda Somaliland ku wargelinaynaa in dadkaasi degdeg taageero biyo iyo baad bale loola soo gaaro in dadkaas ay dawladda iyo xukuumaddu ka warhayso gudida abaaraha ee degmada Garadaga oo iyana deegaanadaasi ka hadlay ayaa sheegay in wixii gurmadaha si degdeg loo soo gaarsiiyo deegaanada kala duwan ee degmada Garadaga hoos yimaada oo xaaladooda nololeed ay marayso meel aad u adag waxaanu hadda ku sugannahay waanu joognaa aniga ku hadlaya afka gudida abaaraha ee degmada Garadaga tuulada Sincaro oo runtii soo guurtadii ugu badneyd ay isku yimaadaan aagan dadku marka aan xaaladda ka warramo iyo meelaha ay ka soo kala guureen waxaa ka mid ah gobolka Sool dhammaantii waa ka soo wada guureen waxay joogaan deegaanka Garadaga xaaladda nabadgelyadu aad bay wanaagsan tahay hadda ceelkan aynu joogno had iyo habeen waa laga cabayaa habeen iyo maalin waa laga cabayaa ka degma Garadaga ahaan annagoo markii horeba ciidanku nagu yaraa waxaan ka codsanaynaa wasaaradda arrimaha gudaha in horta ciidan dheeriya inta ay xaaladaas jirto ee dadku saa isku dhex jiro oo habeen uu cabayo oo maalin cabayo oo waxa soo geelay ay cabayaan oo niba meel ka yimi oo niba dabeecad gaar ah leeyahay
in aanu si nabadgelyada loo ilaaliyo aanu helno ciidan dheeraada oo aan ku ilaalino nabadgelyada ilaahay baa nabadgelyada ilaaliya waxaan ku codsanaynaa wasaaradda arrimaha gudaha oo ugu horeeyo wasiir maxamed kaahin axmed waxaan ku codsanaynaa in hawsha hoos loo eego tan kale xaaladda abaarta markaan ka warramo runtii dadku markii hore uu kala jilicsanaayo dadka xaaladda abaartu ay soo rartay ee markii hore ka kala yimi Togdheer Sool Sanaag ilaa Puntland dadkaasu markii hore dad jilicsan iyaga ahaa laakiin hadda waxa jilcay oo la jilcay dadkii deegaanka Maxamed Gumburi telefishinka bulsho Garadag